marka wariyaha ahaa gacanka wuxuu amray haweenka jirkooda gata in la soo aruuriyo marka meel baa la isugu keenay anaa marka waxaa la yidhi barnaamij ka soo samee hal su'aal baan warsanay in aad shaqadaan samayso maxaa kugu khasbay gabdha yaryara oo masaakiina oo mid walba oynayso raalli ayna ka ahayn waxay samaynayso mujtamacii oo dhan intay cayriyeen la wada dayriyey meesha keliya oo irsaaqad ay ka heli karaan oo ku noolaan karaan soo lama ano qofka bini'aadanka xaaraanta waa u bannaantay markii ay naftu qabato gabdho wada ciqaaban bay ahaayeen hal su'aal baan weydiiyey marka aad bay ugu faraxsanaayeen wax bedel ah badiil inay helaan bas gabar marka idaacadda aan iskala shaqaynaynay baa waxaan interviewgaas soo qaaday sheekadaan u sheegay war waxay tiri waxaan aqaanaa gabar waxaana ku dhaceen oo sheeko wanaagsan haysa marka barbar gabadhii barbaan iri sheekadu gabadhaasi ku saabsantahay marka gabar wixii aan qoray ay dhab ahayd laakiin hal baan ku daray gabadhii waxaan ka dhigay geesiyad waxaan isku dayay inaan mujtamaca bedelo gabadha inaan la dayrin gabadha inay wanaagsanaan karto hadday wacal dhashay mar inay noqon karto gabar wanaagsan oo sida gabdhaha kaloo kale la guursado laakiin mushkiladu waxay tahay gabadhu hadday mar cunug wacala soo dhashay cidda ninka ma ogola inuu guursado waad arkay sida xarbi loogu diiday in isagoo raba isagoo jecel isagoo doonaya inuu guursado isaga oo xaqiiqsaday gabar wanaagsan asluub leh caqli badan miyir leh isagoo labadoodii waa la isku diiday laakiin waxay leedahay sheekadu dhammaad wanaagsan aakhirkii la isku ogolaanayo gabadhu laakiin mujtamacii way bedeshay laakiin waxay la kulantay barays oo qaaliya ayay bixisay waxay u dulqaadatay wax qof aan karti lahayn usan u dulqaadan gabadhaas siday u dhaqmayso atitiidkeeda dabeecaddeeda kartideeda nin kasta oo la kulma waa caashaqhaya waayo qof waxaan ka dhignay revolutionary ah wax cusub awal waxaa la odhan jiray aad meeshaa halkaas baa mujtamacu ku riixayay mujtamac marka waa inuu ka qabtaa qofka ma aha inuu ku soo bedeshay gabadhaas siday u dhaqmayso atitiidkeeda dabeecaddeeda kartideeda nin kasta oo la kulma waa caashaqhaya waayo qof waxaan ka dhignay revolutionary ah wax cusub awal waxaa la odhan jiray aad meeshaa halkaas baa mujtamacu ku riixayay mujtamac marka waa inuu ka qabtaa qofka ma aha inuu ku sii riixo waddada halaaga iyo maaragtay jirka inay iibsadaan waa inay ka soo qabtaan waa inay qofka rehabilitation u sameeyaan oo dhaqan celin u sameeyaan marka mujtamacii wuxuu fahmayaa maca ciddeedii markay arkaan gabadhiyo karti leh shaqaysanaysa ee secondary dhammaysay jaamacad dhammaysay iyada loo baahan yahay markaa